Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qof kastoo naga mid ah waxa uu u baahan yahay fursad. Fursadaasoo uu kaga dhigo noloshiisa mid aad u sareysa. Ha dayicin fursadaha ku soo maraya ee ka faa'iideyso walaal. Hana noqon mid mar kasta nacamleeya ah oo nolosha dhinacay u socotaba la socda. Ee jadwal lahaa iyo go'aan aad noloshaada ku maareysid. noloshu ma ahan mid sugan. Midka aanan bedeli karin noloshiisa waa midka dhintay iyo midka waalanba. Hadalkaygu iska daa. Adigu ma tihid mid dhintay iyo mid waalanba. Adigu waxaad tahay qof nool oo caqli leh oo noloshiisa siduu rabo u bedelan kara. Haddaad aragto arrin aad iyo aad u culus, isku day inaad qabatid ee ha barin naftaada inaad mar kasta dhahdo laa yukallifu Allahu nafsan illaa wus'aha. Dad badan oo anaga naga mid ah waxay dhahaan alle kuma kallifin naf ilaa waxay awoodo ay karto mooyaane. alle subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa kariimka ah يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. رسولك صلى الله عليه وسلم محوليه اتق الله حيثما كنت. يعني أرنت ويسك فضدهاي سيدا آد وحكست كوهلي كرتيد ألا كعبسو أو صبر wax kasta ayaga fududaan doonaane oo ayaga ku imaan doona. Adigu ma tihid walaal geed meel taagan ee waxaad tahay qof bini aadan oo noloshiisa wax ka bedeli kara. Haddii lagu celiyo 5 sano gadaal waxaad og tahay wixii hore kugu dhacay. Haddii aad ganacsi ku khasaartay, haddii aad waxbarashada ku khasaartay, dhaqankii hore mar labaad kuma dhaqmaysid. waad ku mahadsan tahay walaal daawashada videoga aad daawanaysid. subscribe deh gambaleelkana ku xiji si ay kuu soo gaaraan wax kastoo cusub aanu soo dhigayno.